بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة يوتيوب كعالم تكنولوجي waxaad kaloo nagala socon kartaan page-ka aan ku leenahay Facebook-ga ee Shaafic Abdul wixii su'aalaha waxaad nagu soo diri kartaan caaliminfo@gmail.com waxaad kaloo nagu reebi kartaan su'aalo waxaad qabtaan qaybta Instagram-ka oo description-ka hadda la dhigo aan dhigi doono insha Allah maanta waxaan idin hadda la dhigo maanta waxaan idin doonaa 10 halka wax idin ku bilaabmo doona security-ga ku saabsan casaro ku saabsan hacking-ka iyo qaabka loo qorto markasta aynu dhigno shay qaabka loo weeraro ama loo haagareeyo ama attack iyo weer lagu sameeyo waxaynu baranaynaa qaabka la isaga difaaco labada ardagood isku darsadana hadduu qofku weerarkii garanayo difaaciina markaa uu fahmi karaya laakiin marka weerarkan ku raysiinayna dabadna difaaci ku jirina marka intii iminka uu dhacay xanuunka loo yaqaan COVID-19 waxa kor aad iyo aad u siyaaday oo kor u kacay dadka sameynaya hacking-ka dadka sameynaya dad badan ayaa waxay ku shaqaysanayaan hacking inay shabakada weeraraan inay Facebook qof ka weeraraan inay tusaalahan social media weeraraan waxyaabo badan insha Allah arki doonaa hadda la qadigo cashirkeena maanta waxaan ku qaadan doonaa hadii la yiraahdo qaabka lagaga xadi karo Facebook waa si fudud iyo payload yar oo la sameeyay oo luqadda Python ku qoran ayaa username-kaaga iyo password-kaaga lagu heli karaa immediately ba la heli karaa markiiba iyo waxaan ka doonaa qaabka looga hortago hadda la qadigo marka labada qodob baynu isku taagi doonaa waxaan isticmaali doonaa application baynu isticmaali doonaa loo yaqaan social fish ayaan isticmaali doonaa hadda waxaan isticmaalayaa oo halka ka aragtaa Kali Linux baan isticmaalayaa oo Windows waa la iskaga tagayaa Windows isoo hacking noma sameyn karo laakiin waxaan ku jiraa maxay Kali Linux baa furan waxaan ku dhufanay Kali Linux interface-kiisa horaan soo baranay waxaan ku dhufanay halka ay ku taalo terminal ayaa furaya terminal cusub ama command barnaamij ZMD ayaan Windows ku naqaanaa waa daaqada madow baan furaya marka daaqada madow markaan soo furo ay noo soo baxdo iminka username-kaygi weeyaan Kali Linux waa username-kaygi waxaan doonayaa in aan sameeyo marka koobaadba Linux-ka markasta waxa lagu sameeyaa update baa lagu sameeyaa waxa kale lagu sameeyaa upgrade-na waa lagu sameeyaa markaas aan update ku sameeyo marka hore update baan ku sameeyaa marka dambena upgrade baan ku sameeyaa kor baan u qaaday waayo features kasta markasta barnaamijkan waxa lagu sameeyaa maxay wax ka bedel lagu sameeyaa markaas uu noqdo version-ka u dambeeyay wax walba ay ugu shaqeeyaan marka hore waan update gareenayaa dabeedna upgrade-na oo sameeyaa marka korna waan qaaday waxaan qorayaa marka sudo baan qorayaa sudo waxaan leenahay apt-get baan leeyahay update baan marka leeyahay update ayaan leeyahay marka inta markaan soo sameeyo waxaan leenahay enter password-kii gibi weydiinaya username-kan ku sameystay waxaan leenahay password-kii waa kan baan gelinay inta markaan geliyo xogaa waqti uu qaadanaya imka 6 maraya xogaa waqti uu qaadanaya markaan 22 maraya marka inta update waxa lagu sameynayaa dhamaan tools-ka kala duwan ee barnaamijkan Kali Linux ku leeyahay ayaa dhamaan update lagu sameeyay marka xogaa waqti uu qaadanaya waxa laga yaabaa 15 minutes inuu qaato laakiin anigu horaan u sameeyay oo ma fogeyn shalay fadhiya inaan sameeyay qayb uu yar dhaqsanaya aniga uu yar dhaqsanaya laakiin markii guursaday tahay waxa laga yaabaa 15 minutes iyo 20 minutes meelaha inuu qaato suuragal marka waxaan isku soo noqonaynaa markay halka iminka 6 maraysa oo inoo dhameeyo ayaan isku soo laabanaa insha Allah way hadda waxaad aragtaa wuxuu marayaa 97 maraya update 97 ayuu maraya feature-kii dambeeyay sameynaya uu soo qabanaya feature-ku sameynaya feature-kaas marka wax yar bay soo qaataa waa feature-kii dambeeyay way markuu soo dhameeyo ayaa waxaan doonaa ku sameeyo upgrade waxaan leenahay sudo waxaan leenahay apt-get baan leeyahay waxaan leenahay upgrade baan leeyahay inta marka waxaan leenahay enter baan leeyahay isagana waxa lagu sameeyaa upgrade marka wuxuu ku leeyahay miyo doonaysaa in lagu sameeyo upgrade waxaan leenahay y oo yes baan leeyahay marka ka isagu laftirkiisu xogaa buu qaadanayaa inkastoo anigu ku sameeyay shalay ku sameeyay وعشركان هنسبيني لفتر كي practical كان هنسبيني وعشركان سود المي عشركان دياري تسكوتشري خايف عمر يكون تون يلا بقى بودق صنايع لكن كان لسكيس حقا وقتيا و 15 minutes ميلاس وقاتا لكن ما دام هو نقول سمي يعني هو دق صنايع مركا
waa fetch code buu samaynayaa waa inoo dhamaynaya marka soo ugu dhameeyay hadda waxaad aragtaa wuxuu dhameeyo kale maxay upgrade soo dhameeyo inta markuu dhameeyo inuu noo shaqeeyo waxaan eegi waxaan leenahay nano etc abt dash source.list ayaan leh waa intan duna waa intan scriptga samaynaysa waa intan marka imika hadda taa inoo shaqeeyo waxyaabo badan baa ku jira waa shaqeynaya halkaa isagoo joogo aynaan taaban halkaa ayaa waxaan leenahay new terminal baan leenahay waxaan leenahay vile new tab baan leenahay mid cusub applicationkii hadda waan soo qaadan hatayna aan iska soo xidhna kan browserkaan soo kicinaya Firefox waa browserka kaalin iska isticmaala Firefox waxaan soo dejinaya applicationkii baan soo dejinaya halkaa waxaan ku qoraynaa Google ayaan ku qorayaa Google markaan saa u qoro waxaan qorayaa GIT hub waa shabakada ugu weyn ee laga barto cilmiga security-ga GIT hub waxaan leenahay social fish baan ku dhufanayaa social fish ku waa kan iminka linkiga u horeeya ay soo dhigtay shabakada GIT ayaan ku dhufanayaa shabakada ugu weyn ee laga barto cilmiga security-ga inta markaan saa u soo furno waa kan application kasta qaabka lagu duubo waa sidan any application kaaraynaga habkan lagu duubo ayaan sheegi doono ishaan furayaa dadna waa kan linkigi waa ku dhufanayaa dabadna koob baan ka soo qaadanaya download ku samayn karnaa zip ahaan waan download karnaa zip waan download karnaa laakiin sidana ka fudud waxaan leenahay iska soo laab halkan daaqadii cusbeed kaalay afwan daaqadii cusbeed waxaan waxaan leenahay hadaba daaqada cusub waxaan doonayaa inaan desktop-ka la dhigan doono waxaan leenahay zd desktop baan leenahay desktop ka hadda waxaan joogaa desktop-ka hadda bartaan doonaya inaan ku install gareeyo inkastoo aniga hore igu jiray oo hore u install gareeyay haddana laakiin step-kii iyo tallaabadii waan tusayaa marka intaa markaan idhaahdo ayaa waxaan leenahay si aan ugu shubo application kasta waxaan leeyahay git clone baan leeyahay intaa markaan sameeyo waxaan best ku leeyahay linkigii waxaan leenahay best clipart qaybka social media inter baan leeyahay ka inta markay dhahdo wuxuu ku shubayaa social fish-kii uu ku shubayaa xogaa waqti uu qaadanaya aniga si ugu jiray laakiin xogaa waqti uu qaadanaya wax yar weeyaa bas sugeynaa inta uu ku dhammaynayo 59 buu marayaa 59 boqolkiiba ayuu marayaa wax yar buu qaadanaya way aniga uu ku shubay laakiin update-kii maadaama la sameeyay update-kii uu soo raaciyay inta markaan saa u shubo ayaa hadaba waxaan leeyahay gudaha waxaan u qoriyaa cd social fish baan leeyahay social fish baan printer baan leeyahay hadda waxaan desktop baan ku jiraa social fish ayaa gudaha ugu sii haddaan doonayo waxa ku jiraan eeg wax ku dhufana ls markaan saa u dhufto waxyaabo badan baa hadda u jeeda aad muhiima ka ugu sii muhiimsan u jeeda waa kan waa requirement hadduu kaas inoo shaqeeyo wax kastaba way noo shaqeynayaan requirement-ga social fish kan bibo way noo socdaa arki doonaa hadaan la yiraahdo halka dad waxaan ku qoraynaa marka requirement-kaas ku shubaya waxaan leenahay python 3 baan leeyahay social fish python 3 social fish baan leeyahay كما استعمال يو بيتون 3 بان ليهاي ماينس ام بان ليهاي بيب كان لي بيب كوا مهم انستول بان ليهاي ماينس ار requirement هيجادنا اساس نقول requirement waxaan raacinayaa .txt inta markaan soo raacdo inter baan leh haddii kale markaa imika inoo shaqeeyo wax kasta oo inoo shaqeynaya hacking-keeni success buu noqonayaa haddii kaas inoo shaqeeyo waxaad aragtaa uu ku wadaa imika waxaad aragtaa already requirement-gaas wuu jiray already waxaad halkan already waa ku qoran macni horaan u shaqeey weeye intaa markaan soo aragnay ee fahanay haddaba waxaan isticmaali doonaa waxaan samayn doonaa python-kii script-iga ahaa ee dadka facebook aynu kaga xadinay ayaa la sameynaya ee facebook dadka lagaga xado waxaa loo yaqaanaa python waxaan loo arki doonaa xadniinka qaabka loogu hortegayo waa python waxaan leenahay 3 waxaan isticmaali doonaa kii labaad haddaan sheegay kii labaad ayaan sheegay hadda isticmaali doonaa ayaa ahaa maxay social fish baan leeyahay social fish markaan saa idhaahdo .py waxa weeyaan waa luqadda python-ka astaanteeda sumadeeda
halka HTML ku ay tahay maxay HTML ay tahay sumidiidu halka CSS ay istaan leedahay Java mid kasta ay sumad leedahay ISP ay sumad leedahay halka markaa social waxaan sameeyaa username iyo password aan samaysto oo aan ku geli doono shabakada hadda inoo soo bixi doonta waxaa ka dhigan doona tusaale ahaan caalim baan ka dhiganayaa waa shabakada magaceeda password baan u samaysanaya waxaan ka dhigaynaa waxaan leenahay tusaale ahaan duca qabe waa password caalina waa maxay waa username kan ku isticmaali doona ee ku geli doona marka inta marka idhaahdo waxaan leenahay enter halkan waxaad aragtaa social fish ku guuleysanay hadda waa la inoo sameeyay shabakado badan baa san lagu bahalayn karaa shabakado badan baa lagu inta san lagu hagaran karaa marka imika linki bi inoo sameeyay intaasaan copy gareysanayaa waa linki right click baan leeyahay waxaan leenahay copy selection inta marka inaan halkan ku dhufanayaa waxaan furayaa new tab waxaan halkan leeyahay paste waxaan sidnay inta marka waxaan leenahay enter halka waxaad aragtaa shabakada imika inoo furantay username waa aniga soo sheegnay waa caalim password waa aniga soo sheegnay waa duca qabe inta marka waxaan leenahay login don't save as kale mu baahni halkan imika waxaad aragtaa wuxuu waa 0 statics waa wuxuu waa 0 attack waa 0 URL waa 0 operating system waa 0 xogtu halkan iman ay hadhowto duca qabaha inuu arki doona insha Allah waa inuu diri doona fariinta hadda marka waxaan ku qoraynaa iminka waxaan leenahay www.facebook.com baan leenahay /login inta markaan saa u sameeyo redirection baan u sameynaya qofku si aan u fahmin waxaan leenahay ku tuur www.facebook.com si aan qofku u fahmin redirection noocaas aan sameynay inta markaan sameeyo ee qoro www.facebook.com/login halkan aan www.facebook.com waxaan leenahay e-sign ku dhufo hadda waxaan leenahay success waa lagu guuleystay hadda waxaad aragtaa imika u fiirsada halkan imika waa 0 halkan waa 0 halkan waa 0 halkan waa 0 hadda aragtaa halkan imika waa maran tahay laakiin halkaas way soo buuxsamaysaa imika u fiirsada maxaan sameeynaa hadda xagga sarata uu link yar buu ii sameeyay waa kan linkigaas uu ii sameeyay linkan waa linkii lagu jabsan lahaa intaasan highlight gareynaya right click baan leenahay waxaan ka qaadayaa copy markaan ka soo qaado ayaa waxaan furanayaa Facebook baan furanayaa waxaan tegaynaa Windows ka tegay halkan waxa iga furan Facebook caadiga ah halkan iga furan علينا كله فوق وحنو دريا عالم تجابو وابدا حدا نسميه إنسان متجابيو وحلي اللينك يقول بس تبان له إنتر بان له مركا حتى عالم اللينك كمان دري عالم بنهم كسوق لي هذا با وحلي اليوتيوب فيسبوك بان له هاي facebook.com بان له facebook.com markaan saa wadaahdo waan geli doonaa fariinta imika fariin baa la soo dhigay waxaad aragtaa halkan imika waxaan ku jiraa waa caalin tijaabo fariin baa hadda la soo dhigay waxaan ku dhufana ku dhufo yaa soo dhigay baan eegayaa waxaad aragtaa waxay soo dhigay Shaafi Axmed Caalim oo aniga Facebook iyo caadiga ah ku dhufo qofkii marka soo dirno wuxuu leeyahay bal aan eego linkigan waxbaan ugu qorqornay saanaanta xayeysiisa waxyaabo kala duwan bal linkiga ma eegayo ku dhufo linkiga waa isfuray waxaa lagu oranayaa dib u gal baa lagu oranayaa waa inta khiyaamada waa inta marka weliga link lagu soo diray dib u gal dib baan u galiyaa talahaan iminka Facebook-ga tijaabada username-kiisa qorayaa username-kiisu waa intan waxaan kala qorayaa halkan waxaan leenahay password-kiisa baan gelinayaa waa kan tijaabada inuu isticmaalo una tijaabin badan ay ku isticmaali doonaan gal baan leeyahay hadda iminka Facebook-giga waa la jabsaday war kale iminka taagna Facebook-giga username-kiga password wax waa la hayaa iminka bal halkan baan soo noqonayaa iminka meeshan iminka soo wada aragtaan inay 0 iyo 0 tahay way aragtaa wada aragtaan laakiin bal aan refresh gareeyno first bal on first bismillah waan refresh gareeyna bal halkan bal u fiirsa hadda waxaad aragtaa click baa 1 kani waa 1 kani waa 1 halkan hoos waxaad ku aragtaa qof baa isticmaalay login-kii isticmaalay IP-giisu waa kan loop-kii waa kan gudaha computer-ka operator-ku isticmaalaya waa Linux xilligu waa kan scan haddaba waxaan u baahanahay inaan password-kiisa iyo email-kiisa labadaba arkaan u baahana waxaan ku dhufanayaa halka ay ku taalo view ayaan ku dhufanayaa hadda waxaad aragtaa email-kayga aniga waa kan waa number-ka aan leeyahay password-kayga imika waa kan password-ka qayb baan iska qarinay laakiin qayb kamid ah idin muujinaya password-ka waa kan
labadiiba imika waa ka labadiiba waa ka hadda sidaa fudud baa facebookaga lagu jabsan karaa haddaba qaabkee lagu hortegi karaa oo aada u muhiima anigu jabsi waa aqoon ahaan baynu baraynaa jabsi in dad wax ku yeelanayso ma barayno marka ama ma soo dhigin casharkan waxaa kale macallin waxaa kamid ah maadhowto arday aan ila yimi mobilkiisa ayaa mobilkiisa waxa lagu samaystay facebook iyo aada u fara badan baa lagu samaystay marka facebookyada dad baa wax lagu waxyeeleeyay dad baa si kale loo isticmaalay facebookyadaas oo dhan dabeedna numberkiisina waa ku duwan gashanta facebookyadaas marka waxaan sidee looga hortagaa waxaan u hortagaynaa haddii laga dhigo facebook aan furay si aan uga hortago imika caalin oo kale waa kadan laga jabsaday waan iska soo xidhaya halkan markaan doonaya waxaan ku dhufanaa halkan settingskan tegayaa aan privacyga settingskan ku dhufanaya halkan markaan saa ku dhufano waxaan kasii dooranayaa security and login baan ka dooranayaa security iyo login markaan idhaahdo hadda wuxuu kuleeyahay active waa linux bad active u tahay Hargeysa Soomaaliya wuxuu uga jeedaa macni waqooyiga oo dhan wuxuu isugu aqoonsan yahay halkaas waa aqoonsan marka waxa kaloo laga galay buu kuleeyahay waa meelaha laga galay device laga galay weeyaan haddaba si lagu soo sheego device kastoo laga galo yani qofku waa username password kaga helay hadduu username passwordka xitaa helo ma anfacayo intan ma anfacayso waa inuu mobilkiina gacanta ku haya maxaan sameynaya markaa si aad taas waxaan ku dhufanaynaa use two factor authentication baan ku dhufanayaa taasaan click siinayaa halkan waxaan kasii dooranayaa tagas baan kasii dooranayaa oo mobilkaygaan ku xidhanaya markaa qof kasta oo username password ka xidhay waa inuu numberkaygan haystaa waa taasaa laasima haddaba waxaan leenahay numberkaygan ku xidh waxaan leenahay continue kuwad hadda laysoo wuxuu leeyahay passwordkagi dib u geli waan dib aan u gelinayaa passwordkagi waan dib u gelinayaa waxaa leenahay submit gudbi baan leh hadda waxaad aragtaa sanqadhiisa waan tustaa waa soo dhici doonaa insha allah waxaad aragtaa wuu inoo soo dhacay hadda bal aan eegno waa Facebook waa soo dhacay markaa iminka waan gelinayaa intaa markaan saa idhaahdo bes waa automatically buu xidhsamaya marka dabeed waxaa leeyahay dhan iminka device kastoo cusub oo laga soo galo waxaa la odhanayaa passwordkii xitaa qofku hadduu helo xitaa even hadduu passwordkii iyo usernamekii helaba waa inuu numberkii qasab u hayaa marka laasim waxaa inuu numberkii hayo marka casharka maanta aadka u muhiimkaa ee aadka runtii security-ga ah ayaan idila wadaagay haddii cashar noocan aad ka hesheen like saar commentiga nagu sheeg garee wixii kaa xumaaday ama qaabka u shaqeyn waya haddii laga dhigo cashar noocan insha allah waxaan ku tala jirnaa inaan soo badino cashar kuwasoo dhinaca security-ga aada ugu saabsan ayaan insha allah kasoo warrami doonaa haddii alla ka dhigo waad mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.